السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أصحابتها qiimaha badan ee ku xiran janaalka Aamin Technology isku soo noqdo wanaagsan. Insha Allahu tacaala maanta waxaynu qaadan doonaa cashirkii saddexaad aynu ku baranayno Photoshopka. Cashirkan maantay hadduu Alle idmo waxaynu ku design gareyn doonaa naqshadan ama el classican idiin muuqdo. Haddaba ma aragtay mar kasto designka ama naqshadan oo samaysan miistiri sidee loo sameeyey waxaa lagu sameeyey Photoshop weliba si easy ayaa lagu sameeyey. Insha Allahu tacaala waanu ku bari doonaa sida loo samaysto. Sidoo kaleeto waxaynu baran doonaa maanta uu muhiimadda aynu xooga saari doonaa type tool sida wax loo qoro. Sidoo kaleeto iyo shape tool sida wax loo sawiro. Labadan ayaa ugu muhiimsan. Waxaan dhan hore usoo barnay si sawir loo soo gashto iyo si loo soo jaro. Balse maanta waxaa nagu cusub si qoraal loogu soo darsado. Qoraalkan sida loogu darsado waa arki doonaa hadduu Alle idmo. Sidoo kaleeto iyo shape tool loo sameeyo. Shape tool waxaa la dhahaa kan hooso ama shape kasto waxaa lagu magacaabaa shape tool. Marka waynu isla baran doonaa hadduu Alle idmo. Marka horeeto waxaynu soo furi doonaa artboard cusub. Artboardkan cusub sida loo soo furto hore ayaan idin baray. Balse hadda kan waan kasali doonaa si aad u fahantiin dib ayaan usoo furi doonaa. Waxaynu tegi doonaa qaybtan fileka ayaanu tegi doonaa. Markaynu tagno waxaynu kasii dooran doonaa new markaynu keli ka dhahno waxaa noo soo bixi doonta qaanadan ama setupkan. Meeshas ugu koreyso waxaanu ku bixi doonaa magaca uu yeelo doono artboardkayna ama sidoo kaleeto filekayna uu yeelo doono. Magaca u baahanta ayaa u baxsan doontaa. Hadda anaga waxaan dhihi doonaa L classic. Kadib sidoo kaleeto widthkiisa waxaynu ka dhigi doonaa 50. Heightkiisana waxaynu ka dhigi doonaa 25. Kalarka caddaan ayuu noo ahaa doonaa. Markaas intaas kadib dhahno waxaynu sii dooran doonaa okay. Waxaa noo soo bixi doonaa artboardka aynu ku shaqayn lahaynay. Waxaynu hore usoo baranay sida loo soo gashto sawir iyo sidoo kaleeto sida loo soo jarto. Marka horeeto waxaynu isla baran doonaa intaanu naqshadan sameynin waxaynu ka hor dhigi doonaa laba ciwaan ama laba tool aad muhiim ah. Taasoo ah type tool iyo shape tool. Type tool shaqadiisa waxay tahay inaynu ku qoran karno qoraal alla qoraalkaan u baahannahay. Markaan u baahannahay inaynu qoraal sameyno waxaynu soo dooran doonaa toolka lagu magacaabo type tool oo T-dan. Sidoo kaleeto waxaan dhihi kartaa control T. Keliga markaad ku siidid marka horeeto asiga wuxuu ka kooban yahay intaanu keli ku siinin asiga wuxuu ka kooban yahay qaybo badan. Qaybahan kuu soo baxaya sida aad u aragtid waxaad tagtaa fanaxdaas yar qaybtaas yar kadib keli ku dheh. Kan kaleeto qayb yar uu leeyahay qaybtaas yar bisa keli ku dhehaydaa si aad u aragtid wax kasta oo hoos yimaado. Ama sidoo kaleeto waxaad dhihi kartaa right click bis dheh ama click dheh fanaxdaas yar oo idin muuqato kadib waxaa kuu soo bixi doona inta hoos yimaato. Type tool waxaa hoos yimaado afar tool ama afar qayb ama afar sector kuwaasoo lagu magacaabo horizontal type tool. Horizontal type tool shaqadiisu waxay tahay inuu si horizontal jiif ah aan wax u qoro. Tusaale ahaan hadda wax waa qorihaa balse uma jiidi farta ayaa caddaan iga ah. Waxaa saari doontaa highlight waxaa dhihi doontaa control A. Control A markaa dhahdid kadib waxaad tegi doontaa calaamadaas meeshas kalarka double keli ku dheh kadib far allaala fartaad jeceshaha ka dhigo. Fartii saaid ayay noogu weyn tahay. Fartan si aynu u yaraysano laba mid oo u yaray kartaa inaad ku samaysid resize geeskan soo qabatid kadib aad yaraysid farti saas oo u yaray kartaa balse saan waxaa ka muhiimsan inaad farta sizekeeda aad soo yaraysid. Farta sizekeeda si aad usoo yaraysid waxaad dhihi doontaa marka horeeto fartan iyida ayaa waxaa saaran doontaa highlight markaad saaratid qaybtan sida u jeediinba waxaa ku jira cabir ah 116.01. qaybtan ayaanu furi doonaa ama anaga oonan furin waxaanu samayn karnaa meeshaas T-da markaan dulgeyno ee labada fil aan noo soo baxdo gadaal u jiid farta u yaraato. Sidoo kale saa u weynaysatid dhanka midig u jiid. Saasna oo yari karnaa farta ama inaan resize sameyno. Kadib calaamadaas tigtaa markasta hilmaamin tig ayaanu saari doonaa. Horizontal type tool shaqadiisu waxay tahay inuu si horizontal aan wax u qoro. Waxaa jira mid kaleeto hoos yimaado oo vertical type tool oo si joog inay farta igu qormato. Click si kadib waxaa qori rabtay qor. Markasta waxay ku xiran tahay computerka haysatid awoodiisa. Farteed saaid ayay noogu weyn tahay highlight saaro kadib farta yaray 600 walax waaye saaid usoo yaray weli 200 walax waaye ama waxaad samayn kartaa adiga oo nasdhimin resize inaad ku samaysid. Resize markaad ku samaynaysid farta waa inuu kuu saaran tahay marka horeeto move tool kadib geeska soo qabo kor u jiid.
saasna research ugu samayn kartaa. Kadib waxaad samaynaysaa si aad u aragtid actionka dhacay calaamadaas tigta inaad saartid waayan. Keliga markaa ku siiyid actionkii dhacay aad arki kartaa. Sidoo kaleeto waxaa jiro mid kale lagu magacaabo vertical type mask. Vertical type mask markaanu soo qaadano horta si jiif ayaan wax u qori doonaa, balse waxaynu qori doono waxay noqon doonaa mask. Mask waxaa lagu magacaabo hadda ayaan arki doonaa, xaraf ayaanu qori doonaa. Kadib enter markaanu dhahno ama aan tigta saarno fartii waxay noqon doontaa qaab yacni qaabkan ayay noqon doontaa qaabkaa muuqato. iyada dhammaan waxaa geli doona highlight camal geli doona. iyada shaqo weyn u qabta labana ay muhiimsan mid kale oo lagu magacaabo waxaa jiro horizontal type mask waa tan oo si jiif loo qoro bis. markaad calaamadaas tigta saartid ay arki doontaa. marka type tool intaas ayaynu u gudbi doonaa. waxaanu u gudbi doonaa highlight oo saaro kadib control D iska dheh delete bis taabo keyboardka. waxaynu u gudbi doonaa ciwaankeena xiga kaas oo ah shape tool. Shape toolka marka horeeto right click ku dheh si aad u aragtid inta ku hoos jirto. Shape toolkan uu koro waxaa magaca rectangular tool. wuxuu sawirayaa afar gees ama mid rectangular ah afar gees. hadda afar gees baahan sida u jeediinba markaad deeyo waa kala dheeraad doonyaa. si aad afar gees ugu dhigtid waxaad sawiraysid waa inaad la qabatid shift. hadda sida u jeediinba dhinacaan ayuu u dheer yahay qaybtan kaleetana waa ka gaaban yahay. marka si aad u sawirtid mid rectangular ah waa inaad shift la qabatid asiga soo dooro kadib shift qabo mid afar gees ayaa kuu sawirmi doono. rectangular toolkan waxaa ku sii xigo qayb kaleeto lagu magacaabo rounded rectangular tool. rounded rectangular tool markaan soo doorano waynu arki doonaa siina wuxuu ugu duwan yahay. markaynu daraagarayno horta propertieska inaan soo bixi doono. propertieskan waa meesha aynu ka control lahayno colorkiisa haddaynu color ka bedelayno oo aynu color kale ka dhigayno. marka horeeto colorka ayaanu ka controli karnaa. sidoo kaleeto waxaynu ka controli karnaa qaybtan kaleeto ah inuu wax rounded noogu sameeyo geesaska. geeskan hadda sida u jeediinba afar gees ayuu ahay. waxaan inta markaa u jiidno rounded ayuu noogu samayn doonaa ama wareeg. round waxaa la dhahaa in geeska laga soo wareejiyo. move tool doola soo wareegtid. hadda waxaynu ku sameynay rounded tool. rounded tool waxaa loo yaqaanaa qaybtaas geeska marka kasoo duumo. kan afar gees waa balse kan maahan. rounded tool ayaa loo magacaabaa. qaybtan rounded tool waxaa kasii hooseeya ellipse tool. shift ayaa la qaban doontaa markaad soo dooratid kadib sawirkii wuxuu ku noqon doonaa mid isleeg asiga oo aanan lahayn ubuuc dhinac u dheer. color asaga si default ku saari doona haddaa u baahanta waa ka bedeli kartaa. waxaa kasii hooseeya qaybtan qayb kaleeto lagu magacaabo polygonal tool. polygonal toolkan wuxuu suurtagelinayaa inaan sameyn karo marka horeeto xidig ama star aan sameyn karo. hadda polygonalkan waa 5 geesood. haddii aad u baahanahay inuu intaa ka bato polygonal soo dooro kadib meel bannaan kili ku sii. ama intaada kili ku siin waxaa kaaga fudud markaad soo dooratid oo aad daraagaraysid ku jiidid qaybtan waxaa ku qoran sideska geesaskiisa 5. haddii u baahanta inuu kaaga bato meeshaas ayaa waxaa ka dhigi doontaa inta side oo doonaysa inuu kuu noqdo. 10 markaanu ka dhignay wuxuu noo sawiri doonaa mid 10 gees leh. sida u jeediinba waa kaasaa soo dooro sawiro sideska dhinacayaasha badso. hadda waxaa u baahantaha ka dhigo. hadda waxaynu ka dhigi doonaa mar kaleeto 3 ayaanu ka dhigi doonaa kadib mid 3 triangle oo noo sawiri doonaa. waxaa kasii hooseeya qaybtan qayb kaleeto lagu magacaabo shape tool. line tool aa kasii hooseeya. line tool waa xariiq leh lagu sawiraa xariiq markaa u baahan tahay. qaybtan waxaa kasii hooseeya iyadana qayb kaleeto lagu magacaabo custom tool. custom tool waxay suurtagelinaysaa inaan yacni aan soo gashan karo ama kuu default ah. hadda geel oo kaleeto custom markaan dhaho waxaan sawiri doonaa geel. haddaan geel aan u baahnayn waa iska bedeli doonaa linekan aan tegi doonaa waxaa u baahanta soo baxsan doontaa. hadda line waxaa ahay lifty traits waa wide animal bosti. qaybta u baahantaa soo dooro qaybta faraxda fur. faraxda markaa furtid kaa u baahantahay keli kusoo dheh intana ku sawir. shaqada muhiimsan ee qaabta intaas waay. waxaynu gudbi doonaa marka designkan ayaynu gudbi doonaa. intaan move tool soo dooro control A dheh control D dheh marka hore ka qaad highlight saar intaan kadib delete iska taabo. designkan ayaynu samayn doonaa marka socod wanaagsan waa bogsi doonaa. waxaan hore ayaan u baranay marka hore waxaan soo gashan doonaa Neymar. si wax loo soo gashto hore ayaan idin baray. sawirka soo dooro meeshuu ku yaal adiga ayaa yaqaano. markaa soo duurita calaamadaas tigta waa inaad markaas saartid. tigta markaad saartid kadib aa shaaka kaaga qortaa noo soo weynay. ayaan waxaan soo badanay si badan oo yacni loogu jari kara backgroundka. hadda si ka fudud ayaan tusi doonaa. waxaan tegi doonaa qaybta selection tool kadib waxaan kasi dooran doonaa subject.
marka uu selection kuu sameeyo si toos ah waxaad taaban doontaa qaybkan lagu magacaabo qaybtaasay taaban doontaa maski kilig markaad ku siidid si default ee backgroundkaas ay kaaga jiri doono sawirka xagga geesihiisa kadib weynayso. sidoo kaleeto waxaanu soo gashi doonaa qaybtan kaleeto oo ah dhigiisa kaleeto Mizi. Please markaanu dhahno Mizi ayaan soo gashi doonaa. waxaynu hilmaamnay backgroundka inaanu ku bilaawno balse dhib malo waa lakala hor dhigi karaa aad backgroundka marka hore soo gasho. Mizi sidii hadda aan usoo jarnay marka hore tig saar si hadda usoo jarnay ayaan kan usoo jari doonaa. waxaan tigi doonaa select kadib waxaan sii dooran doonaa subject kadib selection markuu kuu saaro waxaad tigi doontaa calaamadaas meeshaas click ku sii si default ah waxa uu jari doonaa backgroundkan. calaamada waxaa lagu yaqaanaa add layer mask keli markuu sii sawirka waa jarmi doonaa kadib yarayso waxaan u bogsii doonaa hore ayaan usoo baranay kadib waxaan soo gashi doonaa backgroundkii weynaa backgroundka meesha ku yiilaa soo dooran doontaa backgroundka waa kan garoonka waayn. sawirkan wuxuu ka kormaray sawiradii kale ayuu ka kormaray horta marka horeeto aynu weynaysano haddii aad geesaas ka weynayso waa weynaysan doonyaa balse waxaad qaban doontaa shift ayaa qaban doontaa shift markaa qabatid hal dhinac ayuu ka weynaysan doonaa. sawirkaas si ugu kor dhigano sawirada kaleeto horta marka horeeto asiga inaad dul tagno waa kadib qabo hoos u jiid sawirada kale dhan hoos ayuu ka mari doonaa. sawirkan waa xiran doonaa si nooga dhaqaaqin qufulkaas noo saar type tool soo qaado sawiradan iska soo weynayso ayagan dhib malahan shift qabo si hal dhinac u weynaysid sidoo kaleeto neymar Mizina sidoo kaleeto geeska soo qabo shiftna la qabo hal dhinac weynay. type tool hadda waxaan usoo baranay waxay ahayd inuu noo anfici doono sidaan qoraal ugu soo darsanay. hadda sawirka ayaanu soo gashan waxaanu ku qori doonaa El Clasic La Liga 2023 keli ku sii marka horeeto kadib qoraalka aad u baahan tahay qor waxaan dhihi doonaa l markaan dhahno Clasic taas markaan sameyno text noo saar kan asiga nagu koobi garay hab iska waalin si nuu faat alta qabo horta marka hore highlight saaro remove tool soo dooro asiga le nagu koobi garay waxaan dhihi doonaa marka La Liga bis kan farta noogu bedelayna salaadaha ma doonayno calaamadaas kalarka tag kalarkiisa waxaad ka dhigtaa kalar guduud tiq ah ka dhig kan koreeta waxaanu ka dhigi doonaa kalar black tigta saar kadib asiga ka kaleeto dul tag double click ku dheh kalarka bedel white ka dhig haddana kan sidoo kaleeto noo koobi garay alta qabo tale noo gey kana dhexda noogu aadi soo noogu qurxanaado kan waxaan dhihi doonaa marka 2023 iska waali doono double click noo dheh kadib farta waxaynu ka dhigi doonaa kan fartiisa waxa waaye buluug double click dheh sidoo kaleeto farta waxaa soo doortaa qaybta buluugga ah buluug weliba tiqa ayaa rabaa qaybtaas geeskii gey shift noo qabo geeska noogu daraageray wax yar soo noogu qurxanaado ama noogu weynaado kadib waxaa saartaa calaamadaas. sawirkan marka waxaa nugu cusub sidoo kaleeto qaybtan sawirkan waa laba sawir kii hadda le noo koobi garay kanoo kaleeto alta qabo asiga dul saar xoogaa wax yar yaray kadib saas markuu yahay opacity waxaa la dhahaa muuqaalkiisa yani inaan yarayno opacity geeskaas tag layeriska kadib muuqaalkiisa inaan si yarayno yani daciif ka dhigno wax yar ilaa waxaa geysaa ilaa waxaa laakiin muhiim inaa sawirka hooso marka horeeto aynu yarayno hadda sawirka hore yarayhayna maano imal hoos ayaynu gei doonaa intaas la iska dheh kadib inter dheh kan ayaan rabnaa inaa hoos marsano labaa sawir kan kore waxaa la rabaa inuu iftiin ahaado kaas dambe xoogaa uu daciif ahaado hadda ay soo baray kan qabo kan hadda noo dooran qabo hoos gey intaas le waayn xoogaa kan noo yaray kadib labadooda si ay u weynaysano ayagu isku xir highlight isla saar geeska soo bilaaw kadib labadooda waa isla yaray kartaa waana isla weynay kartaa hadda wax yar oo soo weynina shift ayaynu qaban doonaa si aynu hal dhinac ugu weynaysano Mizina sidoo kaleeto aynu ku samayn doonaa sawirkan asiga kuubi noogu sameey
hadda kaas hoose ayaanu dooranaynaa marka hadda miiskan kore ma rabno kiisaas hoose ayaanu dooran doonaa horta marka horeeto opacity-giisa soo yarey geeskan tag qaybta 100% faraxdaas fur opacity-giisa wax yar yarey xoogaa ilaa meelahaas geey kadib calaamada kan u saar kan kaleeto ka kordhig kan xoogaa wax yar waa ina ka kaleeto aad ka yaraysid shift qabo si uu kugu yaraado marka xoogaa waa kaas ah isku tutuusisaadi dhib ma lahan muhiim maahan waqti aan ugu socdo labadooda highlight noo saar geeskan tag saar highlightka noo saartid hal dhinac kasoo weynay awoodda u leedahay inaad maamuli kartid hoos noogu dhig calaamada tigta saaro kadib waxaa noo dhiman qaybtan kaleeto koobka inaan soo gashano koobkaanu soo gashan doonaa oo buusin doonaa waqti aan ugu socdo koobka markaynu tagno asiga ayaanu soo dooran doonaa si loo jaro waayo tusay koob kilig soo dheh waa jari doonaa si loo jaro muuqaal buus ayaa dhihi doonaa adi isku day tan assignment ayaa kaaga dhigi doona koobkii waa kana waa soo geliyey adiga ayaa laga rabaa inaad soo jirtid cashirka dib usoo fiirso labadan Neymar iyo Messi sidaan usoo jarnay hadduu kan ku adkaado kadib waad samayn kartaa waxaan kusoo darsan doonaa qayb kaleeto lagu magacaabo shape toolka markaan kusoo darsano wax yara waxaanu samayn doonaa rounded haddaanu soo baranay waxa markuu usoo baxo propertieskan haddaanan arkaynin waxaad tigi kartaa qaybtan windowgan markaad tigtid kadib properties tig soo saaro wuu kusoo bixi doonyaa wax yar rounded waxaanu samayn doonaa geesaska ilaa adi xoogaa intaas ayaanu ka dhigi doonaa ama badi doono kadib naga xir propertieska kan waanu samaynay kalarkiisa caddaan ayaanu ka dhigi doonaa sida kalar u bedesho shape tool soo dooro asiga markuu dooro fiddaas dooro kadib kalarkiisa white ka dhig wax yar noo weynay kadib move tool dooro shift noo qabo bis kor u jiid shayga markaan samaysano waxaan kusoo darsan doonaa sawirkan kaleeto ayaan kusoo darsan doonaa laliiga said u weyn yahay waa yari doonaa ilaa intii macquul ah geeskaas noo gey sidoo kale shift qabo si u dheerayno markaynu samayno waxaa dhahdaa tig calaamadaas saxda saar labadan si isugu xirno ayaga waxaanu dhihi doonaa si aan hal mar u dhaqaajino highlighter saar meesha u baahan ayaynu geysan doonaa waxaynu soo geli doonaa markaas wax yar xaggaan u sugi doonaa marka horeeto waxaan soo geli doonaa Barcelona iyo Paris sawirka tag file dheh labada soo dooro labadan assignment ayaa kaaga dhigi doonaa muuqaalka buus ayaan dhihi doonaa labadan sawir adiga ayaa kuu daynaa soo gelid anoo soo geliyey kadib type tool soo qaado type toolna waa taqaanaa sida loo qoro type tool soo qaado kadib keli ku dheh fs qor markaas fvs keli ku dheh kadib waxaa qortaa oo keliya vs oo ka mid taala kalarkeeda ka bedelo kalarka waxaad ka dhigataa white ama kalarka ku habboon ka dhig designkan aanu sameynhayno hadda sawiradiisa waxaa soo dhigi doonaa telegramka haddaadan ku jiro nagu soo biir waxaan filaya inaan dhammaynay designkii aysan waxna naga dhinayn wakana wixii qurxiisa aad u qurxiso balse waxaa muhiim inaad ku baro sida loo sameeyo fadlan waxaa kaa codsanaya haddaan ugu cusubtahay inaad nagu soo biirto oo channelka subscribe saartid asxaabtaadan usoo sheergeliysid si ay nagu soo biiraan cilmi aan u faa'iidaystaan marka insha allahu tacaala cashirkan inta ayuu nagu ogyahay waad ku maashaysaa daawashada muuqaalkan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu